bishii May 25keedii 1960kii ayaa wafdi uu hogaaminaya marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu ka citimeen dalka boqortooyada Ingiriiska si ay u soo saxeexaan heshiis dhigaya in Soomaaliland xorriyadeeda uu siiyo Ingiriisku taariikhdu marka ay tahay bisha soo socota ee June 26keeda 1960kii. wafdiga uu hogaaminaya Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ee tagay magaalada London waxay boqortooyada Ingiriiska horgeeyeen waraaqihii ay ku codsanayeen madax banaanida oo qodobada ku qoran ay ugu mudnayd qodob ka mid ahaa qodobadii baarlamaanka Soomaaliland ay meel mariyeen oo ahaa in la soo dedejiyo xilliga madax banaanida Soomaaliland oo waqtigaasi ku mudeysnayd bisha December ee sanadkii 1960kii. arrintaasi oo dawladda Ingiriiskuna ay ka aqbashay. isla waqtigaasi Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo ku sugnaa dalka Ingiriiska ayaa wareysi uu siiyay laanta af Soomaaliga ee idaacadda BBC-da waxa uu kaga warramay ujeedada ay u tageen dalka Ingiriiska iyo waxyaabihii ay ku heshiiyeen waxana waqtigaasi hadaladiisii kamid ahaa. waxay tahay in la wada maqlay maanta waxa ay iska secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay ina kulli ka wada darsantiin baan maraynaya maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad markaa waxa ma dawladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asahatay bay meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayaa dawladda la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay galayso inay tahay in kala la hubsanayay labadii casho hore aan saragnayba baadniin arrinku la baaray dadka meesha jooga iyo dadku sida wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay la baaray bixi dadana markii taas cadaatay maalintii arbacadii gelinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary magaalada dadana khudbadan kala sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxa weeye guntiisii bisha kowdeeda July kowdeeda inaynu dawlad ahaano si aan walaaladeen Soomaaliya isu raaci karo ayuu guntiis noqday marka maanta wada dheer oo aynu soo maray aynu maanta maxay hayday joognaa madaxii asaatay midkii ka dheer kana adag ayaa imika aan galeynaa dawladnimo loo qayliyaa dawladnimo doonina la yiraahdaa waa suura gashaa maanta deennaba soo qaylinay hal dawladnimadiina asaatay ka adag wuxuu yaariga ka sii adag maanta aynu isaga madaxa la galnay hal dawladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa marka iyadii maanta dagaalka kii horeeyay ayaan maanta helayno weyn garayn kuna jaxnay kamaanta inuu hareena kii ka weynaa waxa nabiga laga sheegay sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fariistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo nin waliba maxay hayday qoontiisii dhaayo ayuu la yiri dagaalkii yaraana maanta weyn ka soo baxay kii weynaana imika soo galay asxaabtii wada naxday baa leeyahay markaas leeyahay ya rasuulullaahi dagaalkan maanta galay mid ka weyn ma aan filaynin ka weyn waa maxay dagaalkan aan soo galayna midaynu caad la dagaalamayni buu haabiyay keenna maanta galayna imika galayna inoo hareena waxa weeye keenna nafteena la dagaalamayna wixii xun iyo wixii san nafteena ka celinayna wixii san ugu direynay markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhamaynkaas way naga tagayeen July maalinta July baynu walaaladeen Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeenniida iyo diinteenniida aynu talinaynaa magaalada ku hadhay baa hawle haysaaye talada maanta tala weyn weey inaynu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leeyahay baxajnabi inagii amaanta leeyo kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa inay eegay ilaahay waxa inagu la qabsan hanguni miyo dibahata mudho doma halayga saaray dhinacyagaay daara hartan waxyeelaadihi dhaqdhaqe caalanka dhidbaysow maa soo dhicine mudanayaashii golihii sharci dejinta lana soo doortay 17kii bishii February 1960kii ayuu fadhigoodii ugu horeeyay qabsoomay 5tii bishii April ee sanadkii 1960kii waxaana uu ka qabsoomay qolka shirarka ee golahu uu ku lahaa goobta aynu u naqaano goodirka ee magaalada Hargeysa. kulankaasi waxaa ka soo qayb galay 36 xubnood oo kamid ahaa golaha sharci dejinta waxay 33 kamid ahaayeen xildhibaanadii ku guuleystay doorashadii 17kii February ee
kii ka qabsoontay dalka kana kala socday xisbiyada SNL, USP iyo NUF oo ay ka mid yihiin 4 wasiir iyo 1 wasiir ku xigeen. saddexda kalena waxay ahaayeen xubno Ingiriis ah oo wasiir ah kana tirsanaa xukuumadda Somaliland. waxa kale oo isna fadhiyay kulankaasi barasaabkii dalka Somaliland ka talinayay. ugu horeyn barasaabkii Somaliland Sir Douglas Hall ayaa khudbad aad u dheer ku furay shirkii ugu horeeyay ee golahaasi la soo doortay uu yeesho, taasi oo uu kaga hadlayo barnaamijka hawlqabad ee dawladda uu madaxda ka yahay iyo qorshaha dhow ee mustaqbalka. waxaa xigay in la doorto loona codeeyo ku-xigeenka shir guddoonka, taasoo uu ku guulaystay Jaamac Cabdilaahi Qaalib Inadiir Qadhaadh. kadibna waxaa la gudagalay soo jeedintii ajandaha ugu horreeyey ee goluhu uu ka doodi doono oo uu soo jeediyey xildhibaan Maxamuud Biixi Shuuriye oo ka tirsanaa xisbiga SNL lagana soo doortay degmo doorashada baanka ee magaalada Hargeysa. waxaanuu yidhi ajandahan oo ah xornimo iyo midnimo waa mid ay ku heshiyeen xisbiyada aqlabiyadda ku leh golahani ee SNL iyo USP inuu noqdo ajandaha ugu horeeya ee golahani ka doodo, tii oo la filayo in Soomaaliya ay dhowaan qaadan doonto xornimadeedii haddii isla maalin ahaantaasi dalkani Somaliland la siiyo xornimadiisa. waxa suurtagelaya in mushkiladihii midnimadu yeelan lahayd ay meesha ka baxayso. waxaa la gaadhay xilligii dawladda Ingiriiska ku tala siin lahaydeen in Soomaalida la siiyo xornimadeeda. xildhibaan Shuuriye oo hadalkiisa sii watay ayaa yidhi Soomaalidu ma aqoonsanaa xuduudahan maanta jira, waxaanay u haystaan inay yihiin qaar been abuur ah oo kala qoqobaya. dhammaan dhulka ay Soomaalidu degan tahay waa dal keliya oo aan la kala jarjari karin. sidaa awgeed waa in dalkani la siiyo xornimadiisa 1 bisha Julaay oo ku beegan maalinta Soomaaliya xornimadeeda qaadanayso, si isla maalintaasi ay u wada suurto galaan xornimada iyo midnimadu. 6 bishii Abriil 1960 ayay doodani waxay si kulul uga dhex socotay golaha sharci dejinta. waxaa haddaba isweydiin mudan sababta labada arrimood ee kala duwan looga dhigay ajanda keliya. waayo midi waxay ku saabsanayd madax bannaanida Somaliland oo Ingiriisku gacanta ku hayay, ka kalena waa arrin ku saabsan midowga dhex mari doona Somaliland iyo Soomaaliya. waa laba arrimood oo kala duwan oo mid waliba ay yeelan karto dood u gaar ah. haddana waxa uu goluhu go'aansaday inay labada arrimood ee kala duwan noqdaan ajanda keliya, lagana doodo si wada jir ah iyada oo aan la kala qaadin. marka la dhuuxo qoraalada lagana baaraandogo doodaasi iyo hadalladii xildhibaanadii ka qaybgalay ay soo jeediyeen, waxaa muuqanaysa sababta goluhu isugu dhafay labada arrimood ugana dhigay ajanda keliya. sida ku qeexan qoraalada diiwaanada hadallada xildhibaanadii Somaliland ee dooda ka qaybgalay waxay dhammaantood u arkayeen in madax bannaanida Somaliland iyo la midowga Soomaaliya ay ahayd arrin kaliya oo isku dhafan, habboon tahayna inaan gooni looga kala doodin. taas oo xildhibaanadu si caddaan oo maragmadoona u qeexayeen in madax bannaanida Somaliland iyo midnimada ay Soomaaliya la yeelanayso ay wada dhacaan maalin kaliya oo ku beegan 1 bisha Julaay 1960. waxayna ugu muuqatay in haddii midkood la waayo ka kalena aanu jirayn.